Afghanistan وفرما يا فضل فضل وينو فري هاي وانا كبر على ضنا يا القرآن الكريم مضارع اللي بربسي الله وهاي نسعتي دور حراسات كهسي شاد وحليدي الموشين نحر كيسو هاي إن قالوا ما أنت عضو أنصحيه قان كمدحوينها بيجا وكيلده وكسب سنة سعرين تقان كقلا وكيلده كل عليه بحنت كيد كهاما شلال كبربلاء وأن جعل هاينا حاضريو مقاعيدا وأن حاضرين يا أهلي مهدي حسين عذرة سعيد محمد علمي علي حسن محمد حسن عوالة عينان حسن موسى الفني إبراهيم أحمد الريقل إبراهيم أحمد الريقل إبراهيم أحمد الريقل سوري أحمد برخة وبسية علي محمد آدم إبراهيم أحمد الشيخ موسى إبراهيم عقال عبد محمد حسين حاج عيسى عبد محمد شامع محمد أحمد البسية صلبان عوض علي محمد يوسف محمد حاج يوسف أحمد عبدي هيرد عبد ساحي شمبا مغان صدعي سلطان مضانه ساركتان وشبعك سابسية هاي هامها خيط كبربراء سيدا وحصيو قضب كفرتين يصدح فغرد اللمات لحراسات القراه وكيلده لما فري كرم موشين هدي أرنتو وكهد لي موشين كخصية وقالوه كدوضي isla fadhigaas sadaradeed kal fadhiga dambe ayuu ansaxay keenista mooshinkaasi
golaha weynaha u soo jeedinayaa inuu ixtiraamo golaha inuu ixtiraamo xeerasaadka oo uu ku dhaqmo xildhibaanada oo waa in lagu dhaqmaa xeerasaadka gudoomiye codkeli waxaan idiin sheegayaa hadduu golahu uu yeesho laba gudoomiye laba madaxweyne way jirayaan waddanka gudoomiye cod baad gelinaysaa waad codaynaysaa haddaad ka casaadii ku jirtaa golahu waa fadhiyayaa waana la codaynayaa xildhibaanada kulmiye ma kici karaan anaa gudoomiye waa ma kici karaan xildhibaanada kulmiye socon doontaa inay mudanaha koowaad mudana dhakool xildhibaanada laba doonayo waa la codeeye gudoomiyaha golaha ahna murashaxa xisbiga wadani wuxuu soo qaatay dalka waa duminaya inuu duminayo waxaad ku garanay goluhu ma hadda guri u leeyahay ma golaha hadda xildhibaanada jooga mooshin baa la keenay 38 mudana
mooshinka saxeexay markuu xaadiriyey ee arkay inay tiro u babacdhigi karaya aanay ahayn ayuu mooshinkii joojiyey wuxuu ku leeyahay lama soo celin karo waa la soo celin karaa madaxweynahaba soo celiyey sharci darru ku celiyey sharci darro ayuu ku celiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo celiyey tuuted ayaa lagu celin karaa tuuted ayaa lagu celin karaa isaguna keligii ayaa celiyey mudanayaashu inay u codeeyaan oo codkooda uu qaado oo golaha dhexdhexaad u ahaado ayaa loo baahan yahay haddii golaha dhexdhexaad loo ahaan waayo oo uu yidhaahdo codkaygun baa ka soconaya afarta aan wataa ee mucaaradka dee goluu socon maayo xildhibaan haddaad mooshinkii aad adinkoo muxaafidkii aad doonayseen inaad gudbisaan maamulkii shirgudoonkii uu goluu islaayey adinkuna aad xildhibaanadii labada dhinac ay u kala safteen maanay golihii wakiilada ee Soomaaliland sharaf iyo ceeb daro ceeb miyaanay ku ahayn waddanka oo dhan bay ceeb ku tahay feerkana isagaa ku bilaabay gudoomiye ku-xigeenka isagaa ku bilaabay isagaa ku talagalay inuu qaso isagaa aan ku talagelin dalkan inuu hagaagsanaado isagaa aan ku talagelin golahani inuu shaqeeyo wuxuuna moodayaa in feed lagu fuulayo dalka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxtinimadiisa laguna fuuli maayo ceebteedana waajibkeeda la marin doona saasi markay saa wax u dhaceen iminka maxaa xal ama aad talaabo qaadaysan hadda tiin muxaafid xalka waa la isaga imanaya waa laga tashan laakiin foolxumada halka ka dhacday waxa ka masuula xildhibaanada siiriga qubayay dhowr iyo 10 xildhibaan ee mucaaradka marka xildhibaanada muxaafidka qayb ka mid raacaan waanu ogolahay inay aqlabiyad noqdaan oo ay cod ka helaan waanu ogolahay ama garha ku helaan ama gardaraa ku helaan laakiin inay aqbalaan weeyaan maalinta laga badan yahay codka inay aqbalaan weeye ma aha meeshan feer la isku muquunin maayo anaa kaliya gudoomiyaha ma aha waa xildhibaanada soo wada doortay xildhibaanada doortay shirgudoonku waa shirgudoon waa kii guurtidu ay nagu dhexdhexaadisay in shirgudoonku uu shirgudoon yahay xildhibaanada mucaaradka anaa gudoomiyaha u yiraahdo xildhibaanada mucaaradku waxay ku doodayaan inaad mar walba awood u sheeganaysaan oo aad goli kaga badantiin isla markaana aad mar walba rabtaan inaad wixii xoog ku muquunisaan taas miyana garab iyaga oo tiro yar ah oo aad iyo aad nooga yar bay rabaan inayna muquuniyaan mana hadda in tirada badan muquunisee maalinta uu cod haystana inuu adkaado weeyaan maalinta codka laga haystana waa inuu aqbalaa laakiin ma aha inuu feertamo ama dagaalamo ma aha ama golaha qaso ama joojiyo aqlabiyadda goluhu mooshinkay soo dhigtay inuu joojiyo xaq ma laha wuxuu sheegay gudoomiye in la taliyaha sharciga ee golahani uu leeyahay iyo warqadii gudooda halaad ku eegteenba ay odhanayso mooshin hore looga dooday golahan mar nabad mooshin laga dooday ma jiro maalinta hore mooshin lagama dooday laba mooshin oo shaqa isku leh ma aha waxa weeye maalinta hore lama doodin soo jeedin uu sameeyey isagoo aan la taliyay sharciga u dhiibay soo jeedisay haddana isagoo aan mooshinkiiba loo keenay ayuu ina yaroo taliyaha u yaroo laba kelmood ka soo qortay waxa weeye goloweynaha marba sidii la doono loo wadi maayo wuxuu leeyahay golaha soo jeedin madaxay magacyada wuxuu akhriyey waxay markii loo dhibay inuu yidhaaho qaban maayo oo magacyada markay ansaxeen 12 xildhibaan baa la marayo 8 baa soo saxeexay marka waxa la isku haystay waxa weeye inuu procedure mariyo maalinta isagu uu qaban wadana inuu yidhaaho xeerasad ma jire waa soo jeedi maalinta waa arkay in laga badanayana inuu yidhaaho anigu waa shirgudoon baan nahay speaker ma ahayn waa gudoomiye wuxuu gudoomiye ku yahay shirgudoon laba nin oo shirgudoonkaan nahay saddex nin oo shirgudoonkaan nahay talaanu wada leenahay ma aha inuu isagu wuxuu doono ما يهرت دقيقة سي بروفيشنال وحيد جافاتي قد كده حتى دي مكيله جافاتي قد ما سيدي وريوي بدل العقل سوق هذا سؤال شي هرن ويديه كاga jeedo hadii igu celis adiga wali muran ka dhigay jafati waxa kama jira xilli baan soo saaray horta waan ku sheegaysaa marka hore haddii personal laga dhigayo adiguba waxaad xaqiiqo qaatay adoo dhuuno 9 kiilo marka wadiga socon karin